بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa maxamed faarax diiriye waa guddoomiyaha guddiga RA. waxaan marka anigu aan ka hadlahayaa waa dhulkana waa mari doonaa. waxaanse ku hormarinhayaa waxaan dhegaystay 3 nin oo meediyaha ka hadashay oo saddexduba haddii ay ku rooyahay xadgudub lagu ah annaga. ninka koobaad waa cali yuusuf xuseen meediyuhu ku jiraa wuxuu leeyahay dhul waa la kansalay dhulkan RA dadkii lahaa baa loo celiyey dadka meeshaan ka hadlahayaa dhul ma leh ayuu leeyahay. waxa weeye marka waxa dhulkan Soomaali qof aan ogeyn sharcigiisa waxaan cabanaynaa ilaa dhowr iyo 10 sano muddo kugu dhow. Soomaaliya nin jooga oo xamar jooga oo aan ka dheregsanayn ama siyaasi ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama madaxweyne hore ha ahaado ama madaxweyne dambe ha ahaado oo aan ogeyn ma jiro. faahfaahin badan dhulkan uma baahna. Soomaali waa ka dheregsan tahay laakiin waxaan ku hayaa dhac bareer ah oo harkii jooga oo aan geel loogu soo gaban. waxaana u daliila derbiyada la dhisay oo hadda la dhisay oo waaweyn oo ganacsatada iyo xildhibaanada dadka ah iyo haddii ay ku rooyahay ay dhisteen oo muuqaalkooda aad arki doontaan ama ninkii raba la soo tusayo ayaa laga dhulboob cusub weey. waxaa intaas ku darhayaa nimankii hadlay cali yuusuf xuseen waa la isku dacweeyey dhulkan waa laga xukumay fulin baa lagu soo qoray. fulintii waxa laga hor istaagay niman la yiraahdo asluub oo sharciga diidan. markii ayagii baan istacweynay waa laga xukumay asluub maxkamaddu yaalaa meel walba ninkii u baahan baa loo keenayaa. taas waxa weeye waa dhulka intuu soo maray sharcigiisa iyo raggii iga horreeyaa ka hadlay uma baahna faahfaahin badan. Soomaali waa ogta. waxaan ka hadlayaa marka u soo noqonaya 3 nin. cali yuusuf waa nin hal baadiya qalahaya hal baadiya oo la soo dhacay nin qalahaya weeye. qalqalana wuxuu leeyahay haddii ilaahay ku rooyay haragga iyo majaha iyo haddii ilaahay ku rooyay waxyaalaha aan raggu cunin buu leeyahay. asaga marka waxa weeye jawaabtiisu waa qalqale ma awood uu nagu dhaca ma leh raganimo uu nagu dhaca ma leh dad buu qalqale u yahay. qalqalihiisa ha ku ekaado iyo mar dambe idaacadda ka hadlay. waxa weheliya ninka labaad waa ninkii idaacadda ka hadlay oo yiri dhul reer maxamed siyaar baraan gaday oo wakiil ka ahay 16 sano ku dacwoonay dhulkan wali ma aan saarin ilma aan saarin ninkan qof RA wakiil ka ah ama iska leh oo aan aragna ma jiro. waa been abuur oo jidka la yimid iyo warqado been oo soo aruursaday. annaga reer maxamed siyaad barre nin baan u naqin maxuudiin xasan maxamuud baa la yiraahdaa. asaga dhulkoodii gaday 20 boos bay ku lahaayeen 20 kiina maxuudiin baa gaday. annaga ninkan mana garanayno waxa uu sheegana waa been oo leeyahay lacag baa la siiyay iyo warqad been ah soo taagay. ninkaasna waxa weeye dib ha isugu laabto warkiisana ninkii dhageystay uu run u qaadan. anigoo abshir maxaa culsow oo kamida dadka iskale dhulka RA oo dulmiga iyo dhibaatada lagu hayo. waxaan halkan uga hadlayaa si kooban inaan nahay dad la dulminayo oo sharcigii dalka ka jiray inta laga soo booday hantidooda la rabo in lagu dhaco. dhulka haddii aan bilaabo waa dhulka la yaqaano oo la yiraahdo RA. sanadaha uu soo baxay waa 88 89 90. dhulka waxa uu dhaxeeyaa Soomaalida badankeedu waa taqaanaa waxa uu dhaxeeyaa wadada aada xoosh iyo dhulka la yiraahdo galmudug. laamigana waxaa ka xiga warshada daawada iyo dugsiga xanaanada xoolaha iyo asluubta. dhulkaas dadka iskale dhulka waxaa la bixiyay midka ugu horeeyay 1988
sanad ka dambeeyey iyo sanadkii 90kii dokumentigiisa waa haynaa waa kaan kor u hayno qofkii lahaa hadduu maqan yahay hadduu joogo dadkeena jooga ka wakiila inteenaas iyo in lamida waxaan u taagannahay in dhulka cadaalad loo helo marxalado badan buu soo maray markii ugu horeysay dacwaa la isla tegey dacwadii waxay u xukuntay dadkii dhulkaa lahaa way qoran tahay dokumentigiisa waa la hayaa guddigii la dhihi jiray khilaafaadka ayaa xukumay waxaa ku xigtay mar labaad dacwo kale oo ay wateen niman injineere iyo magacyo kala wata oo magacyadu halkan ka sheegi doono dacwaa la isla tegey waa la xukumay annagaa naloo xukumay ilaa markii dhibaata nala ku hayaa maalin walba qolo baa soo degaysa ilaa hadda dhulkaasi waxuu gacanteenna waxaa ka hortaagan inuu soo galo oo xukunka sharciga ahee diidan dad ka mida siyaasiyiinta dalka oo mas-uuliyiin qaarkood iyo niman magacyo kale la baxay oo injineero iyo maalgeliyaal iyo sheeganaya iyo niman ganacsataa ragga warkaa sheeganaya oo hawshaa hortaagan waa dad la wada yaqaan liiska horoo laga xukunka hore ku qoran yihiin magacyadu waa la yaqaanaa intaasoo dhibaatana la soo marsiiyey dastuurka dalka Soomaaliya u degsanna meel qof xuquuq ay leedahay qof kale ku qaadan karta biduun sharci ma laga helayo dhulkan waxa weeye hadda 40 sano muddo ka dhow dhulkaas cabiraya waana xalaaloobi waay marar badan baa la isku daray warqadihiisa waa kuwa dhulka sharciga oo dokumentiga ah 100 sano ka hor haddii la dhaco waa sharci mana guurayo kelmadu waxaan leeyahay dadka mas'uuliyiinta oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyadda ummadda aan haya kulkum raac wa kullukum mas'uul an ra'yati dadkan dhibaataysan la dulmay guryahoodii la burburiyay hantidoodii la dhacay awoodda loo sheegtay intaas oo qof oo sonkor iyo dhiikar iyo mushkilo qaba dadka waa garan kartaan maanta dadkii dhulka loo cabiray maanta wax yar baa ka nool waxa nool waa xanuunsan yihiin ma socon karaan halkan khasab bay ku imaanayaan waa agoomo waa islaamo waaweyn waa dadka dulman oo mas'uuliyadda Ilaahay ni saaray oo ama hadda waad arkaan dhismaha ka socoto 7 moolad baa la dhisay waa kuwa dhismihii darbiyada soo min arag interlog iyo dhankan warshada daawada iyo soo min arag dhismaha iyo guryaha laga dhisay waxa weeye waxa uu khasaara meesha la galiyay khasaaro ninka halka hantidiisii galiyay Ilaahay horta khasaaro galiyo laba dulmi baa sidiisa dhulku waxyaabaha la dulmiyo ugu weyn dadka masaakiinta oo awood lahayn oo la dulmiyana waa waxa kale hantida Ilaahay shirkada waaweyn baa ku jira leeyahay bunuug baa ku jira dadka ugu xoolo badan baa ku jira war Ilaahay xoolaha markaad ku xamdi lahaydeen oo dadka masaakiinta wax ugu qabal haydeen oo u dhisi lahaydeen oo buushashka ka jajabaad u kabi lahaydeen ma waxaad ugu badasheen shukriga Ilaahay iyo lacagtu ilisiyay inaad dadka ku dulmadaan oo ku dhacdaan oo ku dishaan tiidankii booliska oo gobolka Banaadir haddii loo adeegsaday shacabkii uu badbaadinayay islaamaha iyo caruurta awalba boolisku ekaay ayagii hadduu ulaynayo fujinayo maxaa la sugayaa xasan shiiqo waxaan si weyn noo sheeg mudan madaxweyne noo sheeg waxaan si weyn haddii inta forliif hoosneel ka geliyay sariiraha naga iyo ilmaha naga oo jiijiifa la isku rogay xasano maxaan sheegaynaa maxaad noo tahay waxba noo ahaan maysa dadka ku soo socoto RA waa sharci nimanku way xishoodeen anigu gabar baan xishoon mayo wallaahi ul cadiim dhaxdiisan tagayaa inta aan ka garaarsado wallaahi oo billaah oo talaa waan dhaartay weesa ay dhor ninkii idil ilaha banaanka soo maro wiilka taliyaha booliska ee dadis baan ima u dhici karo wariyaahe waa ku aqliyeynayaan xaaraanta ku saban laaluushka lagu siiyaa moodi inuu kula soconayo baabuurka aad wadato qofanin aad ku sii jiraysaa moodin lacagta aad haysa inaad dhamaysaysaa moodin Hindiya iyo Pakistan iyo Jarmal iyo Turkiga kaaga baabaysa xaaraan baa iskala shaqadaas war mushaarkaaga kugu filan war joog war intaada yar qaado war Cali Yuusuf ku dacar ku siin war aqri Yuusuf ku seejin war qabrigaaga ha dhigan balaayo war arla ka qofkii dhaco arlada ah rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam todobada dhul baa arlada loo sura war waxa kugu filan anagoo hal boos ka siino naga celiyo tuugada tara jarjarta dhulkiin war saa ku deemayno hadda halkaas galabta waxa isugu nimid dagaal inaan qaadno soo dir ciidanka soo dir lahayd adoo laaluush qaata ah oon ciidan dhul ku lahayn oo in lagu abramaana is aadi karin
oo maxkamadda aysan ku soo dirin balna soo aad adoon wadan waraaqdii maxkamadda gobolka Banaadir adoon wadan haddaad noo timaado haddee adii le waay waxaan kuu sheegaynaa faasas iyo midiyo iyo dhagxaan aan wadana waxaa shalay iyo daraad soo baxay niman dhahayo dhulka loo aqaan jiray RE iyo la oran jiray dhulka RE horena waa loo dhihi jiray haddana waa la yidhaa waana la dhihi doonaa haddii ilaahay idmo wax lagu bedelay xoogna ku bedelmi maayo heshiisna laguma bedelin waa RE waa halkaasuu taagan yahay oo loo aqoon jiray dadka laha waxaan u sheegayaa in loo yaqaano haddana loona aqoon doono insha allahu tabaaraka watacaala qodobka kale dhulkii waka hadda waa wada dhisan yahay muddo 20 maalmood oo qori caaradiis derbiyadaas aad u jeedaan hortiina ka muuqda oo horteeda saaran ayaa lagu dhisay 20kaas maalmood qori caaradiis qofka dhulka lahaa ee dukumiintiga saxda wata markuu tagana saldhigga galbeeda lagu xiraa inta wiil meesha taagan oo telefoon dirsado yaa laba cabdibile iyo caas iyo wax la soo diraa hore laga xiraa galabtii markuu nafu yaaba la soo daayay meesha isku tagi kuwii faalsada iyo tuugada iyo warqadaha watana derbiyaal dhaadheer ayay dhisteen waa dadka ugu xoolaha badnaay dadka dhisana hal cad oo suqaar hadoo faaro hadoo u gala qadada way tufayaan waa xaraan bay ku leeyihiin maanta lacagtooda xaaraanta ay ku riixayaan ma fiirinayaan masaakiinta ay ku barakacinayaan ayagu ku dagayaan anaa dumiyay anaana qaatay bay ka wadaan halkaana ma soconayso ilaahay ka cabsada ilaahay qaaruun iyo maalkiisa dhulka la jaray oo fircoon iyo mulkigiisii badda ku laayay ma dhiman ma duqoobin ma jirana mana maqna waana idin jeeda waxa aad samaynaysaan xoolahiina dadka ha ku dulminina lacagta xaaraanta galaysa ma eegaysaane haddii lagu yidhaha ilmaha 2 wacal ku darsa ma ogolid haddii lagu yidhaha arigan 2 doofaar ku darsa ma ogolid war hilibkii doofaara ku galay haddii la yidhaha qadadii maanta ma ogolid laakiin lacagta midda galaysa yaa xalaaleeyey taasi waxaan ka hadlayaa ragga ganacsatada ee derbiyada waaweyn ka dhistay ee bangiyada leh ee shirkadaha waaweyn caanka leh ee nusboos islaanta halka ka kacday iyo ninkaas iyo anigoo aan leenahay oo aan qof laba boos lagu jirin xoogaya 34 sano ayaa laga joogaa maalintii la cabiray iyo 33 sano iyo 35 sano dad baadiye ka yimid markii ka bacdi ayaa maanta taariikhdiisa ka sheekeynayo isku atooreeynayo aniga maartay ka farsamo yaqaan iyo sharci yaqaan ka wax ka jira male waxa soo haray walaalaha ninkii hadda hadlay ee yiri lacaga laysiiyay hadda Facebook ku jira wuxuu sheegay nootaya cali ee ninka la yiraahdo xasan xerow in lagu kala wareejiyo sidii maartay maxamed faarax sheegay hal baqtiday buu qalaya cali yuusuf dhulka annaga iska leh hadduu nala leeyaho keenoo kala haysto ha la yimaado injineer hana loo qabto inteenan qaar badan ka mid waa laga yaabaa in iska bixi doonaan haddii qof walba dukumiintigiisii la yiraahdo meesha ha la geeyo laakiin ha laga dabageeyo dukumiintiga qofka leh booskiisa ha loo cabiro ha la siiyo hadduu cali yahay hadduu aniga yahay mid bixi doona midna waa heli doona haddii daacadu jirto haddii kale hadba waa la joojiya 10 jeer la joojiyo oo saano kale loo burbursho hadda kor derbiya hadda kan derbiya ka horeeyo bilka hore laga fujiyay cali gacantiisa ku dhisay war cali xoolaha meeshan ka gala maxay leeyihiin dadku asoo ka xoolo maxaa ku dhacay war ilaahay ka cabsada noo daaya dhulka yaga annaga iskale haddaad nala leediin nala qaybsada waxaad ku leediin la imaada warqadahan hadda waxa kala soo haray ragga madaxda oo la sheegay gudoomiyaasha gobolada annagu ma hayno cod ay ku dhahan dhulkaas annaga bedelay inay awooddaas leeyihiin qof inta booskiisa ay qaadaan ma aanan maqlin sharcigana kama aanan arkin kumana jirto